kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye ayaa maanta isugu soo baxay xarunta gobolka saaxil ee Berbera maanta oo Jimcaha isla markaasina uu galay tartanka ururada doorashada wareegga shanaad ayaa waxa kala qayb galay munaasabadaasi mas'uuliyiin kala duwan oo ka socotay hay'adaha laamaha dawladda mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo madaxda kala duwan ee xisbiga kulmiye kumanaankan taageerayaasha heesaaka isugu soo baxay khayriyada magaalada Berbera ayaa halkaasi luuxaya calanka astaanta oo xisbiga kulmiye sidoo kalena ku dhawaaqayay erayo iyo heeso ay ku taageerayaan xisbigaasi waxay taageerayaashu sidoo kale ay ruuxayeen boorar waaweyn oo ay ku qoran yihiin musharaxa xisbiga kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici waxayna taageerayaashu saaka ka muuqatay isu soo bax maadaama lagu jiro gabagabadii ololaha doorashada hadallo kala duwan oo ay mas'uuliyiintu ka soo jeedeen madashaasi ayaa waxay taageerayaasha ay ka codsadeen in ay xisbigooda ay talada dalka haya kulmiye ay cod ka siiyaan mar labaad waxay sidoo kale ka warrameen siyaasadda xisbigooda uu dalka ku hagi doono hadii ay beedmo waxaana hadalladoodii ka mid ahaa oo Jimcaha isugu soo baxay garoonka 26 Juun runtii maanta waa maalintii sanaad ee aynu u soo baxno barnaamijkeena halkani waa halkii laga doortay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal iyo Axmed Yuusuf Yaasiin sidii aynu u dooranay ee hagar la'aanta ahayd labada madaxweyne hore maanta inaynu doorno Muuse Biixi diyaar mawtiin ninka xamar u doodayso ee loo durbaantumayo isaguna diyaar u ah inuu duubo calankeena allahayow hanoo dirin adaa daacado jiri isla dadweynaha reer Soomaaliland ee mikrofoonka iga maqlaya ama TV-ga daawan doona meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin weydiisanaynaa in codka Muuse Biixi siisaan inta loo hadhay iyo Cabdiraxmaan Saylici codka yaale Allahu akbar waxa la doonayaa inaynu soo xirxirano oo guntiga dhiisha iskaga dhigno oo aynu hoos guntiga sare u qaadno oo aynu kaalarka gacanta ku haysanno oo aynu diyaar garowno maalintii foodka waxba inoogama hadhana qof walbana uu diyaarsado kaarkiisa uuna eego meesha uu ka diiwaan gashan yahay uu kaarka kaga ridi doono uu ugu codan doono xisbiga kulmiye wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland Cali Maxamed Axmed oo isaguna halkaasi kala hadlay taageerayaasha ayaa waxa uu u soo jeediyay in ay xisbigan ay taageeraan isla markaasina ay codka siiyaan maalinta ay bishu tahay 13 November inagu buusaynu dooranaynaa waxaana laynaga rabaa inaynu ku shaqeyno maslax iyo midnimo waxaynu ballan ah labada cishe dambe waxa la yiraahdaa big rally baa la yiraahdaa xisbiga dimuqraadigu markuu soo dhameystiriyo banaanbaxa ugu dambeeya marka uu doonayo inuu ku badiyo waxa loo yaqaan momentum ama double digit ama sweeping marka la yiraahdo waxa weeye waanu xaqnay xisbigii inaga soo horjeeday waxa la rabaa labada banaanbax ee ugu dambeeya inaynu caruurta soo qaadano khayriyada nimaadno Soomaaliya banaanbaxan ay maanta sameeyeen taageerayaasha kala duwan ee xisbi xaakimka talada dalka haya kulmiye ayaa sidoo kale waxa qayb ka ahayd sadaqado ay siinayeen goobaha cisbitaalada iyo xabsiyada magaalada Berbera kulmiye bulshada isku keenayo isaga kasbaday kalsoonida dadka kulmiye ugu rida dhaqaalaha kobcay kaalin qaadayo taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada Sheekh Abdaal ee degmada Mandheera ee gobolka Saaxil ayaa maanta si weyn isugu soo baxay maalintooda shanaad ee ololaha doorashada madaxtooyada dadka oo socod ku marayay jidadka waaweyn ee magaaladaasi oo si aad u xamaasadaysan ayaa ku dhawaaqayay erayo iyo halkudhigi ay ku taageerayeen xisbiga kulmiye iyo musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbigaasi dadka oo markii dambe isugu soo ururay xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye uu ku leeyahay magaalada Sheekh Abdaal ayaa dadka halkaasi hadal waxa uga soo jeediyay isugu jira maamulka degmada xubno qasan xisbiga kulmiye ee heer degmo wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka odayaal waxgarad iyo dad kale oo marti sharaf ah ودمانتود ka waramay barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga kulmiye uu doonayo inuu wadanka ku hago hadii uu ku guuleysto doorashada madaxtooyada ee fooda inagu soo haysa hadii ay baydmo dalka kii dhicinayay dhididkiisu ku daatay ay dhibaato ka gaadhay iyo kii cadan joogay ee ku cabaayay casiirka caadilkan kugu dheershay codka may u sinmaan cod baa lagu kala baxayaa maanta codkeenna cidaynu siinayna waynu garanaynaa waa kuma ninkaynu codkeenna siinaynaa codkeenna ayaynu siinaynaa Muuse Biixi baynu siinaynaa waxaynu dooranaynaa ninaynu aqoon u leenahay Muuse Biixi waxaynu dooranaynaa nimaynu naqaano aynu kartidiisa naqaano raganimadiisa naqaano degmada Mandheera haddaynu
nahay waa inay nabadgelyada ilaalinaa innagu waxaynu nahay xusbi xaakinkii innagu cayda iyo xagxagashada iyo ragga lacaaya iyo musharaxiinta innagu caayimayno innagu musharaxeennu baynu u codaynaynaa maanta degmadiina Madheera waxaan farayaa codka inaynu Muuse siino inaynu Muuse u codayno codkeena soo Muuse male caafimaadku wax ka qabanaya sidoo ku qoray buugiisa waxbarashadu wax ka qabanaya biyuhu wax ka qabanaya tamarta leydhku wax ka qabanaya beeruhu wax ka qabanaya dooxyadu idin xidhaya cadceedda saxabka miyaa lagu qari karaa waxaa soo dada maxay soo baxeen maanta guusha xisbiga kulmiye iyo Muuse Biixi codka siyaasado maaha waxa weeyaan 13 November haddii la yiraahdo dhowr cisho inooga hadhay waxaynu u baahannahay dadkeena laga keenayo markaa magaalooyinka Hargeysa iyo meelaha kale laga soo kaxaynayo inaynu soo dhaweynaan u baahannahay habeenka halkay nala joogaan la codaynayo iyo maalinta ay nala codaynayaanba inaad si fiican u soo dhaweysaan baa la doonayaa subaxan ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu weynaaye ay sameeyeen dadka ku dhaqan deegaanka tan iyo intii uu bilaabmay ololaha doorashadu cabdisalaan xariir sheekh cusmaan TV-ga qaranka Somaliland Berbera